كدان أنا كوريجني DP World iyadoo ganacsadeyaashii wax la soo degay ayaa waxa hakada kala yara galay systemka loo shaqeynayo runtii maadaama ay shirkadu tahay shirkad cusub oo qalabkii kordhin yaro qalabkii ay ku yara kordhiyeen oo kirada ah qalabkan ay shirkadan DP World isticmaalaysaa waa qalab ayada lagu wareejiyo ay leedahay inagu xilibaan ma samaysano irbad consumers baynahay waxaan inagu soo dejisanaa cunaa maanta haday mushkilada yar ka dhacaan khaliijka cid ugu horeysay saameynaysan ka midna fariintana waxa halkan marinaya haday tahay ganacsadayaasha iyo haday tahay dadka maxay tahay doonayna wax ikhtiraacan ba wadankeena waxa xagga beeraha in la maal gashado wadanku wuxuu u baahan yahay inuu lacag adag soo gasho xigtana adag xagee ku xidhneed way xigta adag waxa naga soo gali jirtay saddex meelood bay naga soo gashay lacag adag mid waxa weeyaan meesha ugu muhiimsan oo xoolaha nool malaayiin dollar bay naga soo gali jiray meelna waxa weeyaan meesha ku xigto remittance-ka amba xawaaladaha oo lacagta la soo diri jiray kale waxa noo soo mari jirtay xawaaladaha ta kalena waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan hay'adaha lagu maartay lagu development fund سوي حسب بدل ما حوي حوالي ويستاجين وكان نسوق أبو بعد دوني نمك لأنه برضه ده سوق إن شاء الله وأنا الفرد وأنا مدحوينه كود ذالي gabagabada xildhibaanada ayaa wasiirka su'aalay sawirka lagu dhisay dekada Berbera maadaama ay Berberi leedahay sawir u kaydsan kaasi oo aan wali laga shaqaysiin waayo warshada sawirka ayaanu haysanaa waxay ku filan tahay sawirkeenu dhowr boqol oo sano 400 sano maanaya ani research kala sameeyay وانا 1958 baa daraasad lagu sameeyay Jimsinka yaala Berbera 1958 buu ka u sareeya ka labaad baa adduunka ee u badan adduunyadu waxay u dhamaysay laakiin nagu ilaa 58 dadweyne oo taala hadaba maanta waxaan idinku bushaareynayaa hawshaasi inay iska soo gabagabowday shirkadihii la siiyay Berbera Cement Factory iyo Sahel Cement Factory ay guul macnaheedu safgarad ka gaadheen maanta hay'ad inay price-ka wada qabtaan in hawshii la dhaqaajinayo marka la dhigay warshadii assessment-keedu soo dhamaaday marka maanta ku balansanay xafiiskayga inay maanta yimaadaan laakiin anaga ku baarlamaankan la balansanahay beritoole marka ay ku leeyahay hadii la yiraahdo marka tafaasiishana beritoole hel doona arrintaana dabadan in badan runtii ka riixnay mana doonayno inagoo resource haysano wadanka dhaqaale u baahan yahay oo export aynu baahanay inaan wax dhoofino inaynu inagu maartay la yiraahdo cid bay u dabrantay cidna uma dabrananayso wana la dhaqaajinaya wana la maalgelinaya runtii waana uga mahad celinayaa shirkadaha waaweyn ee ku heshiiyay in ay imaka hawshii isku dabardaan Britolana warbixinteeda layna siin doonaa shirkaygan jaraa'id waxaan kaga hadlayaa dulmiga iyo qabyaaladda oo Cabdilaahi Dheere wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hayo gobolka Awdal iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteedba Cabdilaahi wuxuu qabiil ku eriyay shir qabiil baad ka qayb gashay gudoomiyihii maamulihii dugsiga Sheekh Axmed Salaan Maxamed Xuseen Xasan ayuu ku eriyay shir qabiil baad ka qayb gashay haddii qabiil la isku eriyo waxa lagu eri lahaa Cabdilaahi Dheere sababtuna waxay tahay Cabdilaahi markuu xilka qabtay waxa la soo shaqaaleeyay 14 macallin 14 ka macallin wuxuu qoray beeshiisa 7 ka madiina waa jufadiisa hoose haddaba haddii qabiil wax lagu eriyo oo qabiil la isku eriyo oo qabyaaladda laga baabiinayo Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdilaahi lagu eri lahaa oo madaxweynuhu ku eri lahaa waa ta koowaad talabaad isku duwihii waxbarashada ee gobolka oo ka hadlay shaqaalahan 14kii war shaqaalahani noomay qornayn yiri liis horaan noo maqnaa isna xilkii buu kaga qaaday abtigii rumaad buu ahaa xilkii ayuu kaga qaaday oo nin beeshiisa uu keensaday meeshii waa qabyaalad taasina haddaba haddii qabiil wax lagu eriyo madaxweyne Cabdilaahi lagu eri lahaa
ee shaqaalaha masaakiinta in lagu eriyo maaha talabaad waxa uu soo baxday gobolka 14 sanadkan uu joogay 22 maxay ahayd ardaya oo jaamacadda gudaha laga bixiyo 22kiiba beeshiisu ka dhigay Cabdilaahi 22kii qofba beeshiisu ka dhigay qof gobolka kale kaga mudari waa qodobada qabiilka loogu aan ku aaneynayno ta saddexaad wuxuu eriyay 20 shaqaala 20 macallin oo beesha makaahila 20 ayuu eriyay Cabdilaahi ilaa imikana cid ka hadashay ma jirto haddaba qabiil wax lagu eriyo Cabdilaahi lagu eri lahaa wuxuu kale u galay konton macallin oo halkan wax ka dhigi jiray magaalada dhexdeeda oo macallinku wuxuu qaataa $80 wuxuu ku kala tuuray boon iyo qunjeed iyo eedhan iyo qalooc iyo ku kala tuuray isagoo waliba beel ahaan u eegaya oo cid gooniya geynaya dhulkaas ninka $80 qaata $80 ma isagiiba ku filnaanayo tuulada jooga cidlada ma reerkiisiiba qaadani ma waxa weeyaan arrinkaasina wuxuu uga jeedaa waa eri cad weeyaan say meesha uga tagaan buu uga jeedaa kontonka macallinna waa la wada garanayaa hebel iyo hebel iyo hebel baa loo garanayaa cid buu eeganayaa Cabdilaahi qabyaalad buu ku shaqaynayaa waxaan leenahay haddaba iyadoo waxaa soo dhani jiraan ayuu maanta ku ereeyaa shaqaalihii wasaaradda waxbarashada shir qabiil baad gashay cid walba waa qabiil cid walba waa qolo Soomaaliland oo dhan baa qolaa haddaba halkan waxaan uga dirayaa baaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxaan leenahay madaxweyne waddankan lagu doortay adigaa lagu doortay adigaa ka mas'uul ummadda ninka xilka lagu dulmayo ee shir qabiil buu ka qayb galay leeyahay lagu dulmayo Cabdilaahina waxa soo qabyaalada uu sameeyay dulmigaasi adaa aakhiro lagu qaban doonaa mudane madaxweyne inaad ka jawaabtaan doonaynaa arrinka uu Cabdilaahi ku kacay ee goboladii Soomaaliland oo dhan iyo gobolka awdalba kula kacay inaad wax ka qabataan doonaynaa waxaan kala baaq u dirayaa hay'adda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan leeyahay waxaasi dulmiga cad ee jira ee ninka shir qabiil baad ka qayb gashay war cid walba waa qabiil cid walba waa qolo cid walba waa qolo waxa weeyaan dadka in lagu eriyo ma ahayn shir qabiil baad ka qayb gashay waa ayaan daro waa nasiib daro baaqaasina wuxuu ku socdaa labada wasaaradood wasaaradda arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay'adda shaqaalaha waxaan leenahay hoos loo eego shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland kanuun ma ahayna konton kale waaniga imika in calaamadaynayeen konton kale ay ku jireen beeroolka imika in la dhaafiyo la doonayo cid kalena lagu bedelo cid uu wata Cabdilaahi inuu ku bedelo doonayana waan naga sheegina haddaba hay'adda shaqaalihi iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan leenahay war shaqaalaha idinka ka mas'uule hoos loo eego in orta liiskoogu soo gaadhaba muhiimee halkan dhexduun baa laga bedelaayo wasaaradda Cabdilaahi cid uu doonun buu hadana ku soo qoranayaaye waxa loo eego hoos baan leeyahay Bismillahir Rahmanir Rahiim shirkayga jiraayid waxaan ugu qabanay arrinna soo guda gashay oo wasiirka waxbarashada waa qodobka horeeyay aniga xildhibaankaygu arrinta uu ka hadlay horta isbaanaan lahayn qolada beesheeda ka hadlaysa iyo Cabdilaahi waxba u kala dhiman oo waxaanu islahayn reer nuur iyo jibraac shuurada ma kala iibsadaan shuurada midna lacag lagama qaado kii ku horeeyaba horta Cabdilaahi tuka duwan buu keenay wasiirka shakhsi ahaantiisa aan u hadlaynaa ulama hadlayno tolkayga kale jibraacin ulama hadlayno habar afaan waxaan la hadlaynaa waa Cabdilaahi shakhsiyadiisa
عبد الله مركز نقطه عبد الله اللي اسك عليه واجب قرن إلا قرعة عبد الله يقول اسك عليه واجب قرن بوب كنا لقوه ذجري ماي وحوال لقوه كلا بحي دونا واحد بريهم بس ومال أنا نقطي أور نبوك البر راني أور كلا كينا وما نتاو مرريا بيهينو قارسين دون مويان ورا عبد الله وحنا لها ظروف بديين كا قيلسين iyo basaaradii ku soo maray gurigiina wad dhameysay warna dadkaaga u miyiri mishaarka macallimiinta ayad guriga ku dhisatay toban kunood ka goynaysidee taasi waxaan u leenahay war duruufta Ilaahay baa dadka ka bixiya roobaday beertaada iska qodo oo Ilaahay ka boqo masaakiinta daa dadka tolkaaya u miyiri anu intaasan leh waxaan halkan shirka jaraa'id u qabanay waxyaabaha dhacaya bilaha Ramadaan ee la cibaadaysanayo taasoo bishii Ramadaanna ay soo gashay ay ahayd in laqwiga iyo la iska daayay khilaafka wasiirka waxbarashada Soomaaliland kullay xukuumaddu maadaama waqtigeedii si gabaabsi yahay waxay ahayd in dadka ay u dhaxayso waxaan aaminsanahay dadka salaadiinta ah macallimiinta ardayda iyo haweenku inay yihiin dadka birmageydada ah ee in aan la taabto ama aan la dilo ku haboonin wasaaradda waxbarashadu macallinku hadduu qabyaalad galo waxbarashaduna ardaygu qabyaalad ku dhaqmaya waxa la barayna qabyaaladu noqonaya sababaha keenay sida maamulaha Sheekh Cabdisalaan looga eriyay iyo macallimiin kale waxay ahayd in la ilaaliyo macallinka uu ahaado waxyaalaha Soomaaliland ugu qaalisan macallinka iyo askarigu inuu ahaado birmageydo laakiin nasiib darro ma dhicin waxay noqotay in qof waliba halkiisa lagu beegsado qof waliba halkiisa xilka laga qaado sabab looga qaadayna ma garan karo qofka bini'aadanka inta bi'ada la nool haduu noco ayuu la noolaan karaa cid lama noolaan karo waxaan leeyahay wasiirka kullay hadallada badan waa laga soo dhawaajiyay jaamacadii uu maanta ardaydiisu ay dhiganaysay ubadkiisu ay dhiganaysay ninkii weeraray buu ahaa taana waa laga weynaa ninkii weerar lahaa buu ahaa xamar iskoolada private-ka ninkii weeraray buu ahaa private-ka waxay ragii xamar weerar lahaayeen la doonayay in xamar ka hawl galaan oo xamar u jawaabaan laakiin ninka jaamacadiisii macallimiintiisii ku soo wareegaystay uma malaynaya inuu Soomaaliland rajo kale u soo wado waxaana leeyahay warbal 5 bilood baa hadhay 5 biloodna saddex xisbi mid heli Allahu yaclam laakiin dadka birmageydada ah ee aan ku habooneyn in la taabto ama maxay ahayday dadkii ku haboonaa in la ilaaliyo macallinka iyo askariga iyo dadka waaweynba waxaan aaminsanahay xukuumaddu inay arrinka ka jawaabto oo ay ka ilaaliso wasiirada hoosta ka dilaya ama maxay ahayday birta u wata dadka birmageydada ah xukuumaddu iyada laga xisaabtamaya inta la doortay ee baarlamaanka madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka saddexdaasba waa saddex bulshada ay soo doorteen ee sharciga inta laga xisaabtamayana waa intaas marka waxaan oran lahaa bal arrinka dib ha looga noqdo gobolka aan ku noolnahayna ma qaybtano dadkeenu ma sarrifmo waxaan nahay dad wada degan xaaladahan siyaasadeed ee xisbiyadu hadday noo kala sawiraan beelbeelna waa ayaan daro laakiin aragtida ama mabaadiida lagu kala duwan yahay iyayna saameyn iskoolada iyo jaamacadaha oo ha ka duwanaato dadku way isdhaleen abtaal la isku yahay ehel iyo gacal baa la yahay ma aha inay ayaamo kooban ina kala kaxaysa 6 bilood marka xisbiyadu dhamaadaan dadku waa walaalo marka waxaan aaminsanahay ninka siyaasiga inuu dadka dhex keeno wax dhibaataynaya ama fooda u dhex keeno ayaan darro u tahay birina dadku isku imanayaan waxaan leeyahay gobolka aan ku noolnahay war ma qaybtanay siyaasiyiintu ka daayay calaamadaha dadka lagu qaybinayo